السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa dhici kara qofka haddii uu isku celiyo hindhisada sidaan ogsoonahay hindhisadu waa raaxo oo waxay jirka u tahay raaxo wuxuuna qofku ku dareemaa nafis markii uu hindhiso kadib waa naxariis Ilaahay oo jirkeena uu ka soo saaray haddii qofku uu isku celiyo hindhisada waxay ka dhigan tahay inuu awood badan oo jirkiisu oo si furan marka hore u saarayay hadda ay ku laabo doonto qayb ka mid jirkiisa taasina waxay keeni doontaa in ay dib iyo cawaaqib xumo oo aan la mahdin qofka gaarsiiyo waxaaba ugu horeeyo oo ay keeni karto waxa kamid ah in haddii qofku isku celiyo hindhisada iyo pressure-ka saa'idka gudaha u celiyo inay keento dilaaca dhigaha ama xuubka dhigaha ama eardrum waxa la yiraahdo waa sameecada qaybta dhexe dhigta banaanka ee dhigta gudaha sii jirta u dhaxayda taasi oo inta badan ku dhaco codka kadibna u gudbida qaybta gudaha dhigta si loo soo turjumo haddii xubkaas uu dilaaco wada dhimi karto waxa la kara haduu qofkii inuu ka sheegto culays dhigta xageeda maqalko yaraada ayaa ka iman kara waxa kale oo dhici kara haddii qofku isku celiyo hindhisada in ay dilaacaan xiidada indhaha sabab la xiriirta pressure-ka iyo cadaadiska saa'idka ee saarmaya xiidada indhaha sidoo kale waxa dhici karta xiidada mararka qaar in xiidada maskaxda ay qaar ka mid dilaacaan halkaasna uu ka dhasho brain aneurysm waxa kale oo dhici karta mararka qaar in feeruhu ay jabaan sababtoo ah qofku markii uu hindhisada hoos isugu celiyo marka hore wuxuu isticmaalayay awood xoogan oo jirka ka imaanayay taas waxay keenaysaa marka in maadaama hindhisadii iyo hawadu tirada badneed iyo awoodii meel kale ka baxay aysan jirin inay feeraha qasbato oo halkaasi feeraha qaar ka mid ah murqaha ay dilaac ay ku yimaadaan sidoo kale waxa dhici karta qaybaha dhexe ee sunuska ama qaybaha hore ee meelaha dulada lafaha in ay qudhooda dhaawac u gaaro haddaba intaas in ka badan ay ka dhalan kartaa haddii aad naqaska ama hindhisada isku celido sida awgeed waxa muhiim ah inaad hindhisada sida Ilaahay ba kaaga keenay aad fasaxdo haddii ay suurtagal tahay ama aad meel aad ku hindhisi karin aad joogin waa inaad gacantaada u dhigtaa ama shay iyada oo tiisho kale aad afka u dhigtaa ama aad madaxaada hoos u raadicdaa waxaan ka wadaa aad iska dadabtaa meeshii markaas asliheeda kuma hindhisi kartid laakiin inaad isku celidaa waa talo xumo intaas aan ku soo koobnaa barnaamijkeena insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaad share gareedaan oo asxaabta la wadaagtaan